nimankii Nigerianka ahna halkana lagu qabto waxaanu ahaa ninkii yidhi by the way sidee idiin qabsadeen nimankan aan arkay jaahiliintii hadalkaasina waa hadal taariikhi ah war nimankan marka horeba sidee dadkan arkay idiin qabsadeen buu yidhi haddaydan liidan baabuur ciidanku leeyahay bartan lagu qabtay marka nin sirkaal oo waliba labiskii xiran baa baxsado aniga iyo Ibrahim Dhagaweyne iyo waa buurta caalamka ka taagan yahay weeye waxa dhacday saddex dhacdo waaweyn waxaanu tagnay qoladii intay askartii xagga ka timiyay jihaad watay intay askaxa ka dhigeen jihaadna dileen rasaastoodii ay wateen oo ku qarqarxayso waxaanu riday maxaabiis meelan ku hayno ma jirin iyo culayskooda waan iska sii deynay iyaga bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabadayda wadayaal meel ka soo aad joogtaan oo barnaamijkii kafadaha miisaan ee toddobaadlaha ahaa toddobaadkana waxaynu ku eegi doonaa ama dib aynu u milicsan doonaa taariikh hore iyo dhacdooyin cajiib ah dagaalkii buuraha ee 84kii iyo jidgooyadii buurta sheekh ay ururkii SNM ka fuliyeen kaasi oo lagu wiiqay ciidankii taliskii Maxamed Siyaad Barre bal haddaba taariikhdaas ayaynu maanta dib u eegi doonaa ee daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aynu taaganahay waxa weeyaan dawgii sheekh waxa weeyaan waa foodkii waa karintii alxamdulillah gumburta arkasaan iyo gumburta kale labada gumburood waa halkii loo galay 84kii dagaalkii buuraha Professor Cabdisanaa Yaasiin iyo Dhagaweyne iyo waxay ahayn hal dhinacaasay galeen waqooyiga xagga tan kalena waxa galay Maxamed Cali iyo ciidankii labadii qaybood ciidanka loo qaybiyo halka jidgooyadii loo galay baa hay'ad jihaad iyo lagu dilay xagga hoosena jihaad ninkii la oran jiray baa la dilay ee dadka u daraa taasina waa karintii sheekh dhinaca koonfurta inaga xigtaa tanna waa tii Maxamed Cali ay galeen taa kalena way naga sheegnay marka meel taariikhi weeyaan oo ku caano maaragtay halgankii ku caano aad loo yaqaan weeyaan halkana waxa lagu qabtay nimankii muxuu ahaa Nigerianka ahna halkana lagu qabtay ee hay'adaha ka shaqeyn jiray waxaanu ahaa ninkii yidhi by the way sidee idiin qabsadeen nimankan aan arkay jaahiliintii marka horeba hadalkaasina waa hadal taariikhi ah wuxuu la yaabay nimankii gaaniyo wixii meesha haystay iyo dee nimankii faqashta ahaa iyo reegana fikirisi af walba ku hadlaya carab wax walba ku hadlaya sidee kulka horeba idiin qabsadeen buu yidhi wuu la yaabay markaas halkan waa kalluunkii yaraayo wuxuuna uu la cunay war nimankan marka horeba sidee dadkan arkay idiin qabsadeen buu yidhi haddaydan liidan waa golis waa maartay buurihii golis weynaa dhinacan ay loo yaqaano gacan libaax saab soconaysa bartankoodana marsin baa la yidhaahaa waa dhul dooxooyin oo dhirta ka baxday sida kuwa daalo kale weeyaan oo haddaad gasho aan lagu arkayn weeye xaggan ayaa xaggan inaga xigtaa meeshan waa meel istaraatiijiko waanu dooranay waayo dee waxaanu nahay niman dalkoodii joogoo garanaya marka halkaana waanu xukumaynay oo afkii laga soo gelayay halkana waanu xukumaynay oo afkii laga soo weliba ciidan kalaa buur kale oo halkaasaynu siiro taagi doono iyadana ayaa ciidankii ninka la yidhahaa jihaad ee loo soo diray ee laga soo kaxeeyey ganka yagolka nimankii iyo cadaadli ayaa laga soo qaaday ciidanka marka waa ciidanka halkaa maaragtay lagu hor joogsaday lagu laayay marka meeshani waxa weeyaan meel taariikh weyn halgankii SNM kule oo 84 weey dagaalkii buuraha 1984 buurahan iyadoo weyn malay maxaa idin sahlay inaad ku dhuumataan ma xayramadkan iyo hawlahan way leeyihiin wax eeg xayramadka markaad ku qabato taasi waa buur yaroo iska feelfeelan weeyaan laakiin sida tan oo kale gumburtan waad arkaysaa waxa xayramad waxa ka baxay caalamad iyo ayaa aad uga baxay waliba dhaadheeraada sida kuwa noqdo waaweyn marka annana waxaanu sidanay dareyskii markii dambe xagga Itoobiyaanka loogu bixiyay dareys qabaleega oo dareys cagaaran weeyaan marka kaas lagu arki maayo marka halkan cagaarkan iyo kaas isu eegeen xayramadkii waxa soo ekaaday iyo markii ba soo ekaateen mid kale waxa ay u bixiyeen baalu dhalinyaradu ciidankii Sayd Cali baa loo jiray ciidanka qoriyahan musliimiin qorigii nuur mudooba oo nuur Isxaaq baa loo bixiyay buurtiina waxay u bixiyeen dabaabadii Sheekh Isxaaq baa loo bixiyay dhalinyaradu u bixisay halkan markaanu cabaar joogno waagii baa noogu markuu waagu bari doono qaar ka soo baxay oo ciidanka
baabuur ciidanku leeyahay baa bartan lagu qabtay bartatan ayaa lagu qabtay marka nin sarkaala oo korneyl oo weliba labiskii xidhan baa baxsado ninkii uu cararo halkan buu galay oo marka nimay oodnayne halkaasuu ka dhacayo dabeedna yararkii iska daaya baanu nihi waa nafaan baxayna iska halkaasna qaar baa maya kii gaariga waday waa iyo kuwii kale waanu qabaano waxay noqdeen ciidan ka yimi xagga bariga oo ciidan barigaa ka yimid bay ahaayeen saad baanay u doonayeen oo taakuladii bay u doonayeen ciidanka markaa dabeedna waxaanu de maxaabiis meelaan ku hayno maa jirine iyo culayskooda waanu iska sii daynay iyagiyo baabuurkoodii waxaanu iska taga moogtay nimankii markii dambe aad baabay u mahad sheegteen oo de waa ninkiina ka baxsay dee mooyikaasi meel ku galmeeye waa naloo sheegay warkooda markii dambe waxa wallahi nimankaas waxay niman dee dagaalamayaan laakiin aan ka tegaynin milgihii dadku lahaa iyo naxariistii marka halkaa waxaa ku jiray sidii axmed cali gelu sheegay waxaa abaandunana maxamed cali ba ahaayo isagii ninka cabdilaahi cabdilaahi cuto ku naanays ayaa aniga iyo ibraahim dhegaweyne iyo ninkii berigii dhaweytee laodhan jiray dhintee laodhan jiray dekafinish iyo oo waa buurta calanku ka taagan yahay weya cabdilaahi cali obsiye iyo maxamed cali iyo isaguna cabdirasaaq la yidhahyo saraakiishii militariga ahaan jiray iyo halkan bay galeen marka waxaa dhacday 3 dhacdoo waaweyn halkaa ciidan yaroo sahanay soo direen oo aanu kula kulanno ciidankii markaa ciidankii elwan baabuur land rover ayaa jiro ninkan la qaban doono ee maraykankii baabuurkiisii uu lahaa oo dareewalkiina aanu iska sii daynay ayaanu markaa wadanaayo dabeed kolkaa ciidankii haggaa buurta fadhiyey halka jihaadiya lagu dilayo ayaanu u tagnay aniyo dhegaweyne iyo markaanu ka soo noqonaanu halkan marayno ciidankan doonayna inaanu aanu dee ogaano ayaa sanqadhba waanu ka weynay ciidanka show ciidanka ninkii bay qabteenoo markay ninkii qabteen baa dee markaa ma jirin isgaadhsiin lagu wada xidhiidho iyo mobiladan iyo dee baali wokitokiye iyo waxaana dee waa la iska dhegeystaa maanu diideyne xaggii aanu ku ballansanayne hoosta iyo inaanu gallay u dhaadhaceen ninkiina way kaxaysteen maraykanoo madoob waayo dabeedna halkaa waxaanu kula kulannay ciidan oo sahan oon badnaynoo tabaneeya annaguna 4 baabaanu nahay 5oo markaanu aragnay intaanu baabuurkii ka degnay ayaanu rasaas ku furray dabeedna way iska yaaceen way yaaceenba waxba may soo celinba may dagaalamin dabeedna markay iska yaaceen baanu soo galay baabuurkii baanu soo kaxaynay waanu soo noqonnay dabeed markaa xaggan baanu qoladii kale aanu markaa aanu ugu tagnay waxaanu tagnay qoladii oo intay askartii xaggaa ka timi ee jihaad watay intay askaxa ka dhigeen jihaadna dileen rasaastoodiio ay wateen oo ku qarqarxayso land cruiser landroverka siibka la yidhaha land cruiserasay wateenoo markaasaa dhallinyaradii qaar baa ayaa garoomihii waxaasi ka googoosanayaanoo markaasaanu ka celinaynaa baalayo ka qarxina iska daayay markaasa anagu maanaan garanayna dee raggii garanay noo sheegoo yidhi ninkan ila wey dee waxay markii qarxii uu ku wada qarxay ayay iswada bedeleen markaa dabeed markaasaanu intaanu laabo markii meeshii kaga tagnay ayaanu soo noqonnay halkan baanu markaa dabeedna taliskii nimi waanu iskaga nasanay waar maxaynu yaalla waar nimankii berberey ka soo baxayaan kolley aynu marka qoladeenniina haddaynu isweynay oo ay xaggaa ka dhaceen muhiimadeenniina weynu halkanna waanu kala xidhno halkaa mudday kala xidhnaanoo baabuurtii aanu tubnay mudday meeshu kala xidhneedoo dabeedna markaasaynu nidhi haddaba inagu aynu xaggan u dhaadhacno oo xaggii marsada xaggaa iyo buulalada iyo marsada aynu u dhaadhacno xaggan baanu halkood meelahoo ceelala halkaa markaa ay casar gaaban tahay ayay in yar halkan waxaa ahayd saldhigga tababarka ciidamada ayaa markaa xoogaa ciidamahoo dee kuwaa lasoo urinaya la qasbayo iyagoo qaylinaya oo rig so waxay soo kaxeeyeen artillery bay soo jiideen
markaasaa nimanka caqal xumadooda buurta ba artillerigii la dhacayaan oo beri hore aanu ka baxnay dabeedna markay soo de arkeen inaan reaction jirin bay ayay yidhaaheen ayay la hadleen qoladii iyagu markaa waxay haysteen isgaadhsiintii sii jiraan ma fogaanina ceelkaasi kolley joogaane bal u tegay yidhaaheenoo ceelkii baanu dabeedna annagoo joogna ayaanu dee markiiba dhirtaasoo kale sahanku isku taagaa markaasaa sahankii noo sheegeen in qaar baa soo socda dee ciidan baanu ka horgeyno ciidankii markii ay rasaastii ugu horreeyey hubiyeen ayay dub u yaaceen markaa professor waxaad leedahay halkan waa meel taariikhiya halgankaasi dagaalada 84kiina dhabarjab weyn bay ku samaysay faqashta aad iyo aad dee meeshii baynu la xukunnay ilaa markii hore keligood bay ahayd ayay ku jireen halkanna waxa weeye waa halkii ciidankii laga keenay cadaadley ee ninka jihaad loola jiray watay waa halkii lagu laayey weeyaan madaxdooda markaa dhallinyaradii ciidanka markaa meeshani de waa meel ay tahay in taalo laga sameeyo oo lagu qoro wixii ka dhacay sida runtii meelihii imika aanu soo sheegeyn oo dhami dee waa taasoo dadku uu soconaya waa dhallinyaradina waa kuwanoo yaryarkeenana inay u noqoto xasuus weeye markaa halkan baabuurkii ka soo baxaysay berbera ayaanu halkan ku joojinay baabuur fara badan oo ka soo baxay ciidan baa la socday haddaba niman ciidan saraakiilo weliba u badan dadka etoobiya ka yimi ayay u badnaayeen oo ogaadeen dadkii kaararkoodii baana tuseenoo ciidamadii soomaaliya ahaayeen waxba maanaayeen qof walba iska siinoo dee dadkeennii waxay la socdeen civilianka raciyaddii bay la socdeenoo waanu iska dayna waxaan ku nihi maatadayadaasaad la mid tihiin dumarkeennu waa mashxaradayaan halkan gabadh baa lagu dili doonaa waa markii ugu horreysa aanu hellay sonkor iyo shaah iyo liin dee niman raamaystay baanu hayno meelaha iska joogo oo dee aan waxaa arkin waxaanu biyo aanu cabna iyo rermigaas waxayna siiyaan mooyaane sonkortiiyo shaahuna waxa weeyaan ila intaa waad soconaysaa waa glucos oo dee waxay tamar bay ku siinaysaa markaa waanu jooyado sonkora laba dameerood baanu ku rararnay oo markaasaanu xaggaa buuri ula dhalnay markii dambena dhallinyaradii baanu dacalada aanu ugu shubnay mid walba oonu mid walba dacalka ku shubanay gabadha markay dilayeen waxay leeyihiin yani ciidankii jihaad jabkoogii ayay isna mushxaradabay leeyihiin horta dadka maanaan kuwaxan la laayay saraakiil bay ahaayeenoo baabuurkoodana waxa saaraa rasaas ayuu baa saara wixii baa ku qarxay lama garanayno yaryarkaa gorgoomaa doonaya inay ka gurtaan dabeedna waanu ka joojinayno markii dambaanu buurta gallay ayaa dadkii sheekh ka yimi ee dhulkan dee garanayey ayaa markiiba lasoo maray iyagu de iska reermiyo markaasaa la yidhi waa intaa lasoo qaaday baa loo sheegay in jihaad iyo ciidankiisii halkan lagu laayay buurtay noogu sheegeen markaa annagoo gudaheeda joogtayna ninkii laga fadhiisan waayey nin aad dadka u dhiman oo halkan baa ku disheen maanta isaga iyo ciidankiisii dadkaa madhe bay ahay marka taa awgeed iyagoo ka cadhaysan ayaa laba waxba ay sameeyeen madaafiic bay ka soo rareen berbera madaafiicda meeshii ka soo rareen oo hoos u dhaadhacnay ayay buurahan ku garaacayeen halkii ay islahaayeen waa la joogaa bay ka baxdeen waanu kama baxnay ayay madaafiic la dhacayeen ta kale waxay sameeyeen dad masaakiina oo magaalada degan ayay soo ururiyeen oo dhowr iyo 10 qof ah iyo qofkii dumar ahaa ku jirto soo qabtay dabeedna markaasay bartan bay ku dileen halkan bay ku dileen halkaasay ku dileen waxa weeyaan waa halkii lagu dilay markaa eeg taariikhda nimanka eeg inagu deesa nimanka kuwa dadkan imika leh waana la xasuuqayaayo annagu waa taas saraakiishii ciidanka ahaa soomaaliya beriga ee weliba aan deegaanka ahayn etoobiyaanka ahaa ee uu qortay siyaad waa nagaa sii daynayni maatadaasaa noola matiimo iyaguna waa kuwan dadkan maaragtay iyaguna dadkan waa kuwan dadkii masaakiinta ay ka qaadlaynayaan cid aan askari ahaynna dagaal lalama gelayn askari labisanuun ayuunbaa lala dagaalamay marka meeshan dhallinyaradana waa kuwa soo halkan bay usoo dalxiis tagaan waa dadka baabuurta dalxiiska la socdo dhallinyaradani ma ogaanayeen iyo dadkuba
waxa weeye haddaan dadku iska agmaraan moogto waa dee waa meeshaa ballaaran weeyaan oo dadka dalxiisaya oo dhan mar walba doonaysa waxaad arkaysaa iyagoo halkan taagan oo isku sasawiraya laakiin marka taale laga sii taago sida taa Hargeysa diyaaradda la saaray ee la yiraahdo halkan waa halkii dadka ayna dhibi jiray inta lagula kulmay halka kale laga soo galay afkana la yiraahdo halkii ciidamadu ay soo degeen markii ay markaan xagga ka nimaan soo baxnay halkan aanu degnay weey